bixiso miisaaniyadii sanadkii xisaabkii taariikhda waa 16 waxaan ka codurdaaranayaa buugaagtii laydin lagu lahaa daawacadii daawacayo beriyaha utana laydin keenayo guddida waxaan ku samaynayaa warbixintii inay samayso qabayntina aygiso waxaa dhanka kale ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay warbixin ka dhageysteen guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxay kulamo istaba jooga la sameeyeen hantidowrka guud ee qaranka iyada oo ujeedada kulan u ahaa sidii wada shaqayn buuxda ay u wada yeelan lahaayeen guddida iyo hantidowrka guud ee qaranka golaha weynuhu wakiiladu waxay ansixiyeen xeer hantidowrka guud ee qaranka xeerka lambarkiisu yahay 76/2016 xeerkaas oo ka kooban 70 qodob xeerkan wuxuu awood badan u madax bannaan ku jirta siinaya hantidowraha guud ee qaranka halka guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qarankuna awood u wada shaqayneed siinayo macnaha sida u wada shaqeeyaan wixiina ay u dheelitiraadaan sidaa daraaddeed waxaa guddidu dhowaan la yeelanaysaa kulankaas oo ay guddidu doonaysay sidii la isu waafajin lahaa shaqada hantidowrka iyo guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka iyadoo xisaab xidhkii 2014 ilaa 15 ay guddidu talooyin ka bixiyeen taana wata ansixiseen in la jaangooyo dooda public hearingkaasina uu qabsoomay halkana lagu qabtay dad badan baa ka soo qayb galay wax badanna waa ka faa'iideysan in xisaab xidhka laga soo hormariyo waqtiga loo soo gudbiyo golaha wakiilada waxayna ku habboon tahay 3 bilood ee u horeeya sanad kasta in la gudbiyo sanadkii dhammaaday xisaab xidhkiisa tani waxay kor u qaadaysaa in khaladaadkii hore ee looga helay miisaaniyadda iyo xisaab xidhka loo gudbiyo mas-uuliyiinta ay khusayso si loo saxo loona hogaamiyo oo lagu daro kuwa cusub in loo qaado wada shaqayn labaad guddida ilaalinta hantida qaranka iyo guddida maaliyadda ee miisaaniyadda tani waxay fududaynaysaa in xogta la isku gudbiyo sharing information macnaha in la isla socdo la wada shaqeeyo si joogtaa in degdeg loo dhaqan geliyo dhammaan qodobadii ka soo baxay doodii la qabtay xisaab xidhkii 2014 iyo 15